bulshada rayidka ah ee jooyada infoortareeya deegaanka ama la xidhiidha oo dhowr NGO-ya iyo madaxda dowladda ilaamaha dowladda qaar ka mid ah iyaguna nala joogaan salaadiinta qaar ka mid ah nala joogaan iyagoo ay kula safar dheer soo maray qorshuhuna ahaa in maanta aan halkani saan filayni si qurux badan inoogu dhaco ama tomorrow u dhaco haddana markaan eegna khamiistii kusoo beegantay hawlo badan oo iyaguna ay degdegsanayeen awgeed ayaabaa waxoogaa habkan iyo qabyada yarna gelisay maayo kale intaan waan ku cododaalina waa intaan annaguna kolba dhinac u ordayno marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iminka waxaan kusoo dhaweynayaa maayarka magaalada bal inuu isbedda kelmad inooga idhaahdo anagoo joogno madashiisii horta marka ugu horeysa wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo sacaadatul wasiir oo kusoo dhaweynayna waan soo dhaweynaynaa marka hore mar labaadna ku faraxsannahay wasiirkii deegaanka iyo wafdigiisii oo dhan oo wada socda oo danaynaya deegaanka oo ay cadowga ugu horeeya uu yahay sidaan anagu ka warqabno inay dad xoolihii calaf daayihiin calafkaana ay keentay inaanu dhul dee jirin bannaan ama buurihii ama xoogagii ama daaqsimeedkii xooluhu daaqayeen ciqaabaha ugu waaweynaa dhacayana adduunyada bini aadamka mulkigeega ilaahay u soo dejiy mulkigii ay lahaayeenna xoolihii ay la mulkisiiyey ee ay munaafacaadsanayeen waxaad moodaa inay meesha ka saarayaan malaha hadhow dadkaaba dadka cunaya saasubay noqonaysaa haddii xoolo la cuno la waayo dadkuma dadka cunida ilaahay xoolahan wuxuu inay munaafacadsadaan buu keenay meel alla meel ay daaqaani ma jirto waa problem hadday magaalo tahay iyo hadday miyi tahay midda kale siyaasad waxaa jirta magaalooyinka ku wajahan oo iyadna keentay nadaafad darro markay xoolihii miyigii meel ay ka daaqaan waayeen nin walba 10 riyaal ama 20 riyaal buu magaaladii keenay bilic foolxumo inuu sadaqada yar guryaha hortooda looga dhiso xaarkii iyo digadii dhibaatadii dadkii wartada ahaa ee suuqa fandariska ahaa ee suuqa ka ganacsanayay inay boobaan waxaasoo problema ayaa markaa haddana waxaa ka sii dhashay in markii laga maarmi waayey xoolihii miyigiin ay ku noolaan kari waayeen inay garaabada jaadka iyo waxyaalaha iyo hadhuudh iyo inta la siiyo dee inay magaaladii soo wada galaan biyaada deegaanka ee guud ka soo tii magaaladana nadaafad darrada iyo dhibaatada iyo maxay helaan boobka xoolihii suuqii ay boobayaan haday waxay helaan bay qaadanayaana way u wehelisaa laakiin mar kasta oo meel isugu yimaado ama wasaaradda deegaanka waxaan kulli ku wacyigelin lahaa siyaasad hufan oo ku wajahan deegaanka oo ay lafdhabar u tahay xooluhu inay dhulkii ay lahaayeen helaan magaalooyinkuna nadaafadii ay lahaayeen iyo in siyaasad cusub oo magaalooyinka iyo ay iska kaashadaan iyo deegaanku sidii yani calaf loogu raadin lahaa xoolaha iyo sidii seerayo loogu sameyn lahaa in loo sameeyo taana waa mid lafdhabar u ah inkastoo ujeedadiina socdaalkiina waxa ay ku wajahan tahay guud ahaan mooyaane gaar ahaan aanaan waxba sidaa yaana weli looga taataaban haddana wax walba waxay ku fiican yihiin in barnaamij laga sii diyaariyo wixii laga wada tashanayo iyo bolisiga dawladda hoose siyaasadda ay ka leedahay waqtiyada soo socda iyo wasaaradda deegaanka waxa ay ka leedahay sidii la isku waafajin lahaa waxaa ka muhiimsan in la iswargeliyo oo inaan mar hore ka warhaynay ahayd waana iska yar qabiyo kulley runtii waqti kale iyo mar gaarana waa laga yaabaa inaynu wixii inagu aynu soranayno gaar isku dhahno waynu soo dhaweynaynaa wixii aad u socotaana kulley maxaa hedaanay waxna ummadaynu lanahay waxna waynu ka yeelan doonaa ka gudubno horta noloshu waa deegaanka haddaynu ilaashano deegaanka nolosheenu hagaagsanaysa haddaynu ilaashan weynana dhibaatooyin badan baa naga soo kulmaya sida iminka jirta deegaankeenni maynu ilaalino qodobada dhibta ku haya xoolaha waxa ka mid ah seerayaasha la seeraystay ee ayna waxba ka bixin waxaa la sheegi jiray in canfurtu dhulka kala yeelyeelato in kala seeraysato noocii oo kalaan samaysanay baa laga yaabaa iminka Soomaaliland oo dhan dhulka waa la kala seeray seerahaas waa dhibta koowaad ee haya xoolihii oo geel oo kale meesha lagu sii daayo bannaan buu ku noolaadaa neefka haddii xaggana laga waabiyo orbitka wuu ka baxa dhul bannaan buu raadsadaa oo laga waabiyo arrintan maanta wasaaraddan deegaanku wasiirku hogaaminayo aw socdaana
ووعيجين سين ولا عشان لهين ديجان كله حكم دي نروش كولات وهنقدر داريا أنت الناس بتوقتها يا أنت اللي جمع قرن ميديا اللي قد يصير بسوا هتاي دخلت هاي يا هتاي أول شرط هاي أنت ديجان كردوت لنا إلى عشان يا البن ماشي كفي عن هاي أما الديجان كديرتي له كفي عن هاي وكربش رابك وكاش عماش كلام وكان ديبتا ديجان ساعة وسير ومدنا قبل الصومالي الآن وحلوبها هي وسارة الديجان إن كسر صارفه شرعيه الدولة هوسية معمولة تاجرنا معمولة كتيرة هذه الدولة هوسطها هي هذه معمولة قبلت وهينا أي فليان ثور النسوية معنا كلها ساعات وسير قبل كعوض ومانتي كبارة تمت كسردو ودبعت هذا الصومال لأنه نكتاج ولا هو حمص لها كل يعني يقول شيء قبل كان أوضل وكسي دبعتين قبل هذا كله الصومال وايو وقبل بيرلي قدر قبل ما قبل كي جيلو بدنا ما كواعد صار بحشو كل يوم وكغير تاع قبل هذا كله الصومال أيام فلاي سيش سيدي ملحدي يقول رئيسي منك أي شيء كتير ما يكون كلمة ويجري سولو صوت ضعف نوحي حلو علو تشيلين ودمج على مضاد كسحول الدون وكلمة هذه النقص ما ينسى يعني تأثير وحنا نقص ما ينسى وحنا نكون والله وحولها النور حولها النور نجد بيكون نوري مركا كل جنود تدي يدو يجد بيكون والله مرة تلوحي حوله إنه نو كنا ولا حولنا جيت كنا ولا جيت بين كودا نولا تدي الدنيا جيت كي هدين لوايا مركا إنك حوله واحد نقدام باسين كي البترول كده وحكلهم إنه في النمج وجوه إنه في النكاسوي واحد نور صار راعي جرتي بعدين هل كان كب حينه حقه بريه كبحه والله يراد حبكها فلانك وحلي خاصة كنا بعد إنه يهان كين نفتيسي وحو راعي سيدا درتي اللوض ديرتي والبحر اللوغة وهذا الشيء كاسولة تجي راعي وحمر كاين نوهر سنوان نيفكينا ميلو عنو مهلا يوارد قارنا وحا لغا دكتي سيريال بالك عشيمة وحلي والله إتي كلنا والو وحلو سويدين إننا مرقى حاجة وصعنا قرآنك وكينا لها لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وماذا إلهي يمر وهدانا يوقع موه يسكرون إلهي كما قلت الله توحي إنه كنا ولين هديه إنه قبنوه إنه قعميه إنه يمستحضر إنه يكسوا قوضه إنه كبابي إنه يمركا وحي إنه بابي إنه جريتان كي إنه نورشين اللي مركا وينه صحراء بنقولكوا بدلنا أوكي ولكن صحراء أو عربة البترول بيكرسوا بعناية إنه ولي هدول لكم كجيرنا لما ينصوا بهم وحي إنه وحول بقى والنفقة نفكين الجانسكي وحي عنك جري بينه ودينه ويقولوا لكم كنا لو قاعد بهذه هذا نفط هذه كيجن كنا أقوبض قبل كنا أقوبض وحلص عنا إن هذا النفط هذه سي غير الشرعي الله استعماله أما الله دوفي أما الله استعماله يدنا حوله هني كمت نلا دورو أوكي لبعتدي ووجدنا حب أنت مركب حقيقة سو شيرنا أما إنه إننا نقارن وبراكتيكالي نقارن حقيقة دوبان وهو بوري وحقيقة من كلام وهوية ودتك مش الدجين أنا ريسك ضدك بقول كلا إن الدفاع ده ضدك بقول كلا إن الدفاع ده قف بقى الكيسة وإلى شنو وين إلى شو إن مركب ماشي حوالي نكون ورايا وحوية قبل كستا أما الدقمة كستا jurisdiction واحدة شرعيا وعهوسي ماذا إن دوله وبرسا قاس حكم وجودهان وحلقة دوري أمريكا
قبل كاسو أنت وحكومه سلاطين تير وقاشة دولته هذا هوس dadweynaha ku nool barasaabka guud ahaan xukuma inay soo tagaan dhulka difaacda maxaa marka dawladdu ku saadin kartaa iyadoo ama wasaaradda mas'uulka ay saadin kartaa waxay ku kabi kartaa waxa weeye dhulkii jiri oo seerayaal horta in la sameeyo laga maarmaan oo xooluhu markii abaar dhacdo hadhow lagu baxsado okay dhulka marka seeraha maxaa loo baahan yahay ilaalinta waxaa jira dad ilaalin jiray oo qornaa oo askar u ah oo lagu magacaabi jiray seerayaasha dadka celiya forestry guard baa loo yidhi ilaaliyaasha dhulka ayaa taa waa loo baahaya wasaaradda shaqadeedii waa inay soo celiso seerayaasha inay soo celiso waa laga maarmaan waa kaabayaal marka wasaaradda iyo maxaan ku yiraahdaa wixii kale oo ka imanayay dawladda dhexe waa kaabayaal laakiin yaas budliga waa yaa asal waa dadka ku nool dhulka iyaga si uu daartiisa u difaacanayo inuu difaaco meelo badan baa hadda practice ka dhacda gobolada gobolka hoose iyo sanaag aad maqashay ama sanaag bariyo ka soo qaad waanu meesha ku dhashay waxa ka qarin ma dhahar baa leh oo degmada ugu hooseysa territory dhulka Soomaaliya degmada ugu hooseyso laamiga waxay u jirtaa in kala baray inaga iyo Puntland 24 kilomitir bay u jirtaa magaalada Adeesha waa dhul xoolo daaqeena oo soo bartamihiis 5 sano geed laga guuray 5 sano fafay dawladda Soomaaliya hadda tagto difaacday maaniga soo difaaco dawladda deegaanka ma dadka leh dadka deegaanka iyaga suuq qaamay ila dad badan baa ku dhinto magtooda ay bixiyaan ila 3 nin baa ku dhintay 16 waxay ahayn local iyaga kaas wax ka soo qaad maray 17 kale magtooda waxa la bixinaya laakiin qof waxa ka weyn inta kumanaalka kale ku nool ma garad qof illa dilo ma fiicna oo jidayn maayo laakiin ma soo badbaadiyeen oo qof oo kale hal qof iyo kumanal waxa badan hal qof baa ayaa marka mitaal baa lagu soo qabanay waliba waxa dhahdaa Soomaaliland gobolada galbeed waa ka xaynaya halkaas iskuul weeye baranooda horta ku soo arkay dhulkii sidoo u baxay waa iskuul weeye galoolka geedka la yiraahdo ka baxa marba gam laga siiyo waxba ka haray imika kaala arag soo baxay kaala magarta marka waxa ka wata dhulka law enforcement waxa la yaani xagga sharciga waa adkay karnaa waa soo dejin karnaa buugaga waa lagu qori karaa askartii waa keeni karnaa haddii dadkaas aanay maskaxdooda ka soo goyn waxa kale toona khasab bay noqonaysaa deegaanka way umuurta waa dadka degan intii beeraleyda beerina difaacdo way inta xoolo daaqaynka loo daayo way dhulkaas aynu ku noolnahay waa inaan dhulkii oo wada guntanaa annagana waxaan laga rabaa wixii idin kaabi lahaa oo sida aan u sheegay forest guard waa raba seerayaasha waa raba law enforcement sharcigiisa lagu socodsiin lahaa waa la rabaa waxa soo dhawayn dawladda ka timaada okay yaa marka saldhig waxa weeye waa idinka dhulkii difaaca marka barigaasa gaalada way iska difaacdaa hadda dhulcad badeed iska difaacdaa ya inay dawayna nagu jirto laakiin yarka كله ويسكت دبل جوجنا وادفعنا إنه ده شرعية ده لصحيح إنه كم ده بالعدبان ده وندفعنا بالعدبان يجيب إنه قص وقعان هاي إنه قارت قال كنا العلم إنه كوا استعل إنه وعدو النرشنا وعدو الدركان وعدو مستقبل كعروتنا ويا بالكاس إنه وحنوا كله يسلف هم سنة دفاع السماء علينا كلام وحياه كنا لو قعدنا وحل الدنيا إنه يجنا وحواليها إن اللبادو ما قلت إنه إلى شنو وبعدي وضرحيسك ووحول بيجنا إنه يجنا علمنو حلي شيء جاي وحكي الإسكندرية دينك قلفت لا لو هي اللي قبل يا ولد حسب باور قلت دجال بيسو شيء لو غبطت بل شيء باور ساري يقولوا فين هاي ما قلت دتك
بحر يعني نوشي اللي هدير بحر قبل دينا ولا وكلنا مركب وعلي قليتها أنا والله قام مارمان